waqooyi bari TV. halkani waa buuhoodle waxa idiin muuqdana waa astaanta u taagan xasuuqii Somland ka geysatay deegaanka Kalshale. dalka Djibouti oo hadal yar ayaa waxa uu noqday dalay xilligan isha ku hayaan caalamku iyo Soomaali inteeda badan. dalka Djibouti ayaa waxa ka furmay shir u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka iski madaxbannaanida ku dhawaaqay ee Somaliland. madaxweynaha Somaliland ee Muuse Biixi Cabdi ayaa gaaray dalka Djibouti waxaana ku soo dhaweeyay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele. dhanka kale ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa isna qayb ka ah wadahadalada Soomaaliya iyo Somaliland u dhaxeeya. madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya ayaa iyaguna halkaasi gaaray. shirka ayaa ugu dambeyntii ku furmay si xasilooniya waxaana la guda galay anjadayaasha shirka. dhageysiga anjadayaasha kadib madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu sheegay laba anjando ay Djibouti u yimaadeen inay anjadayaasha shirka ka dhex waayeen. labada anjando ayuu wuxuu ku sheegay inay yihiin inay dawladda federaalka Soomaaliya ay ku soo darto anjadayaasha shirka aqoonsiga Somaliland iyo inay garowsho ka bixiso xasuuqii uu sheegay inay ka geysatay dawladdii kacaanka beesha caalamka iyo guud ahaan goobjoogayaasha shirka. ayuu ka codsaday labada anjando inay muhiim u tahay Somaliland wafdiga ka socda. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa wuxuu carabka ku adkeynayay in dawladdii kacaanku xasuuq ka geysatay gudaha Somaliland. balse daawadayaal waxa isweydiin mudan, Somaliland ma ogsoon tahay iyadu inay xasuuq geysatay oo deegaamada waqooyi bari ama deegaamada SC ay ka geysatay xasuuq ay u dhinteen dad fara badan, kuwa fara badanna xabaalahoodii xilligani tirakoob rasmiya aan laga haynin. badida iyo xasuuqa inta uu leeyahay ayay ku tusinaysaa. buuhoodle waxaa ku taala calaamad ama astaan u taagan xasuuqii ka dhacay Kalshale ee xukuumaddii Muuse Biixi ka horeysay ee Axmed Maxamuud Siilaanye ay ka geysatay xasuuqaasi Kalshale. waa calanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ka babanaya astaanta u taagan xasuuqii ka dhacay Kalshale. boodhada idin muuqata waa boodhad nabad iyo nolol lagu taageerayo jiritaankeeda. Somaliland ma ogsoon tahay xasuuqan inay geysatay? waa su'aasha aan diray.